banaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa loo diyaar garoobo waa mid nabadeed. dadka waxaan ugu yeeraynaa maalinta axadda soo socota oo bisha 10 ay tahay 10 May in loo soo baxo si loogu gargaaro dadka la dulmiyay hoygooda laga barakiciyay banaanka 10 iyo kuwa guryahooda dulmka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan. xilli golaha mustaqbalka Soomaaliya ay maalmo ka hor ku dhawaaqeen in 10ka bisha oo ku beegan maalinimada berri ah ay dadka reer Muqdisho isugu soo baxaan dibadbax ballaaran oo lagu garab istaagayo dadkii dowladda federaalka Soomaaliya ay barakicisay iyo sidoo kale kuwii dhulkii sharciga ay u lahaayeen laga boobay ayaa waxa soo baxaya cabsi xoogan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka markaasi ka wajahayso dibadbaxa loo ballansan yahay maalinimada berri ah iyada oo dhanka kale xubnaha markaasi golaha mustaqbalka ay saacadaha soo socda ku dhawaaqi doonaan goobaha maalinka berri ah dibadbaxa uu ka dhici doono oo ay dadweynaha markaasi isugu imaan karaan. soo dhow daawada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo sida aad u aragto haddii aad ka mid ahayd saaxiibada hore ugu xirnaa dalbila nagu soo biir oo hadda ka mid noqo saaxiibada markasta hela wararkii warbixinada aynu halkan markaasi ku baahino. ma ka mid tahay berri dadweynaha markaasi doonaya in codkooda ay ku garab istaagaan dadka rayidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay barakicisay iyo kuwa dhulkooda markaasi la boobay hagaaga. maalinka berri oo ay ku haastaysan tahay 10ka bisha ayaa waxaa markaasi loo ballansan yahay dibadbax ballaaran oo lagu garab istaagayo sida xubnaha golaha mustaqbalka ay maalmo ka hor sheegeen dadkii ay dowladda federaalka Soomaaliya barakicisay ee danyarta ahaa iyo sidoo kale kuwii dhulkooda la boobay iyaduna dibadbaxan markaasi loogu baaqay inay ka soo qayb galaan dhammaan dadkii la barakiciyey kuwii dhulkooda la boobay iyo shakhsiyaadka kale ee doonaya inay garab istaaga u muujiyaan dadka markaasi dhibaataysan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay tacadiyada u geysatay. xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi maalinnimadii shalay ahayd ku dhawaaqday in ku dhawaad 10,000 oo qoys oo dadkii la barakiciyey ay guryo u dhisi doonto, haddana mucaaradka ayaa markaasi ku tilmaamay tallaabadaasi mid ay dowladdu doonayso in ay markaasi ku hor istaagto dibadbaxa ballaaran ee la doonaya in dadka shacabka ah lagu garab istaago iyada oo saacado kaliya ay ka harsan tahay wakhtiga dibadbaxa markaasi lagu ballamay ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ugu sarreysa ay cabsi xoogan markaasi ay dareemayaan iyo walwal ku aadan saamaynta dibadbaxaasi uu ku yeelan karo qorshayaasha dowladda federaalka Soomaaliya. dibadbaxa ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa inay ka soo qayb galaan kumanaan qof oo shacab ah taas oo markaasi u muuqan karta in dowladda federaalka Soomaaliya doorashooyinkeeda qof iyo codka ay qorsheynayso ama ay wado inay markaasi hakad gelin karaan maadaama bulshada iyo sidoo kale guud ahaan caalamkaba ay arki karaan kumanaan dad oo diidan nidaamka wakhtigan talada haya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo iyadoo cabsidaasi ay wajahayso ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in mucaaradka saacadaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan goobaha dibadbaxa uu ka dhici doono maalinimada berri ah iyagoona sheegay in dibadbaxaasi uu sidiisa yahay islamarkaana gebi ahaanba uusan baaqan doonin uuna dhici doono maalinka berri ah sida markaasi la qorsheeyey. haddaba aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo sida aad u aragto dibadbaxaasi saamayn nooce ah ayuu ku yeelan karaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud.